Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabay, waa mar kale iyo walaalkiin. Maanta waxaan ka wada hadli doonaa maansa cusub. Maansada waxaa loo yaqaana magacayga, ma waxaa la dhahaa dardaaran. Maansadan dardaaran intaanan bilaabin, waxaan niga codsanayaa inay asxaab kale si u gaadho, inaad share garaysaan, inaad asxaabta kale aad la wadaagtaan. Waa codsi waaye, ha la gudbiyo. maansadan dardaaran kolley dad ayaa lagula hadlayaa oo saan hore usoo sheegnaba maansada inta badan waxaa lagula hadlaa dad, waxaa lagu dhiirigeliyaa dad, waxaa lagula dagaalamaa dad oo lagula hadlaa ama dagaal oo kale lagula galaa. Annagu maanta waxaan kula hadli doonaa dad waan dardaaraynaa, dad ayaan la dardaarmi doonaa. Haddii aad imaqlaysaan iisoo qoro, waan ku maqlaa, fadlan hala iisoo qoro. dhammaantiin waxaan iga codsanayaa inaad share garaysaan, aad asxaabta kale soo gaarsiisaan, asxaabta kale gaarsiisaan. Almuhim, waxaan ku socon doonaa ama waan bilaabi doonaa maansada waxay u dhicin doontaa sidan tan. Waxaan iga codsanayaa asxaabta inaad sii share garaysaan. Haddaad imaqlaysaan iisoo qortaan, waan ku maqlaynaa. Hore ayaan ka bilaabi. Waqtiguna aad ayuu adag yahay oo waqtigii dadkii soomanaa ay soo furayeen. dadka weli soomana waqtigu ku adag yahay oo waqtiga ayaa haya. dadka hadda afturaya waxaan ka codsanaynaa inay noo soo duceeyaan, ducadu waa maqbuul. dadka weli aan gaadhinna waa ismaan weelinaynaa oo waqtiga ayaan isgaarsiinaynaa. waxaan iga codsanaynaa inaad sii share garaysaan please dhammaantiin, asxaabta kale inaad usii qaybisaan. waa mar kale iyo walaalkiin. haddaba maansadu waxay ku bilaabi doontaa sida tan. horta ayaa isdardaara, bili-aadanka ayaa isdardaara, xayawaanku isma dardaaraan. haddaba bili-aadan ayaan la hadlaynaa. talabaad dhalinyarta ayaan la hadlaynaa, dhalinyarta sabankan maanta. waqtigii hore culummada ayaa la hadli jirtay, dhalinyarta aqoon-yahanada la hadli jirtay. laakiin sabanka maanta aan joogno waa la wada dayacay, cidna lama hadasho. nin kastaba tiisoon buu la ordaa. dhalinyartii maanta aada ayay u liitaan. saa daraaddeed waxaan la hadlaynaa dhalinyarada ayaan la hadlaynaa. sabankan maanta dhalinyarta joogta ayaan la hadlaynaa, iyaka ayaan dardaaraynaa. haddaba haan ku socdo, maansadu waxay u bilaaban doontaa sida tan. dardaaran dadkaa isfara, dantiisa ninkii gabee dayaca, dawgii saxdee dariiqu kasoo xidhmay, dad yahu dawadiisa tahay. dardaaranka dadka ayaa isfara, dantiisa ninkii gabo ee hawshiisii gudan waayo ayaa dardaaranku wuxu taraa. dardaaran dadkaa isfara, dantiisa ninkii gabee dayaca, dawgii saxdee dariiqu kasoo xidhmay, dad yahow dawadiisa tahay. kuwaas ayay dawo u tahay. dareenka hooyanimo, dulqaadka walaaltinimo, dariisnimo iyo kalgacal, dantaada ninkii danayn. dareenka hooyanimo, dulqaadka walaaltinimo, dariisnimo iyo kalgacal, dantaada ninkii danayn. darxumo kuu diidanee dartaa adi kuu damqada, dardaaranka kuu hibeeya. qofkaas ayaa dardaaranka kuu hibeeya. qof hooyanimo kugu damqado, qof walaaltinimo kugu damqado, iyo qof kalgacal iyo darisnimo kugu damqado, iyo qof ood gacal tihiin oo dee gabadhkaa qaba ama aad gabadhaad ka qabtid, ama qof xidhiir gacalnimo una dhex maro. qofkaas ayaa ku dardaara. intaa wixii ka baxsan kuma dardaaraan, taada unbay way kugu wiirsadaan. marka haddaba wuxuu dhahay, dareenka hooyanimo, dulqaadka walaaltinimo, darisnimo iyo kalgacal, dantaada ninkii danayn. darxumo kuu diidanee dartaa adi kuu damqada, dardaaranka kuu hibeeya. qofkaas ayaa dardaaranka kuu hibeeya. haddaba kuwiis ayaan mid ka mid a anigu ahay. dartaabay maansadani delayda ahii u timid, daqiiqaysii dhagaha, dux weeyaan iga guddoon. dareen waa waano culus, dartaa aan usoo alkumay. waa waano culus oon adi darta aan usoo sameeyey ee iga guddoon. haddaba qofkii kuu damqanayay ayaan ahay. dubuubta han soo dabroo dib hawnsole maansade, daqiiqaysii dhagaha, dareen waa waano culus. daqiiqaysii dhagaha, dardaaranku waa dawo, dareen waa waano culus. daruur aan kaa gudhayn, da-aysa markii la rabo. darajo allaa baxshoo dayaxa guradiisa dhiga, dulleeye ciddii u rabo. dunida waxa ugu wacan, dadkana adi kuugu xiga. dubkaagu markuu qallalo, dabool adag lagu duldhigo, dadkuna kaa wada tagaan, dabkaa shidan kaaga diga.
haddaba dadka waxa ugu wanaagsan oo adiga kugu fiican oo kugu dhow oo ku mudan maalinta aad dhimatid aad aakhiro tagtid ama maalinta uu ajashu ay ku oofsato ka kaaga diga dabkaa shidan dabka aakhiro yaallo adduunka ka kaaga diga ee ka joogso ku dhaho kaas ayaa adduunka kuu mudan kaas ayaana kugu qiimo badan dunida waxa ugu wacan dadkana adig kuuga xiga dubkaagu markuu qallalo dabool adag lagu duldhigo dadkuna kaa wada tagaan dabkaa shidan kaaga diga ninkaas ayaa kugu mudan adduunka oo ku mudan dakane ruux kuu dhigaayo daciifnimadaada raadin dabnuhu malab leeyihiin daqiiqad hadduu ku helo inaad yar daciifsan tahay daqiiqad hadduu ku helo inaad yaro dayacan tahay dalqada waran kuugu geyn ducada ruux kuu huraayo dar alle markuu sujuudo dembi dhaaf kuu dalbaayo dariskood kala wanaagsan labadaa qof dariskood way kala wanaagsan yihiin qof kolka aad dayacan tahay dakane kuu dhigayo oo rabo maalinta aad laciifsan tahay rabo iyo qof kuu ducaynayo markaste oo marka aad yarad uu sujuudo uu markuu ilaahay hortago ama markuu ducaysanayo kugu darayo labadaa qof ay kala wanaagsan yihiin haddaba kaad saaxiib ka dhigan lahayd adiga ayay ku taallaa saas ayay ka dhigan tahay ducada ruux kuu huraayo dar alle markuu sujuudo dembi dhaaf kuu dalbaayo dariskood kala wanaagsan labadaas kee dooran lahayd adiga ayay ku taallaa dalag aad beeratiyo duruus aad hedlatiyo deyrkaagu hadduu burburo digniin weeye ogow dadaalka ha joojin abid haddaba dalag yarood adu beeratay ood gacmahaaga kusoo saaratay iyo cilmi yarood baratay ood adigu aada aqoontaadii ku baratay dadaalkaaga ku baratay iyo deyrkii aad lahayd intuba hadday kaa burburaan oo dhibaata ay timaado digniin weeye ogow arrinkaasi waa digniin waa laguu digayaa digniin weeye ogow dadaalka ha joojin abid sii wa dadaalka haddaba ha joojin ayay ka dhigan tahay damacu inuu ku qaadin daleed cad kuu tilmaamin duxiyo midho kuugu sheegin kii damcaha inuu ku qaadin oo duxiyo meel qaldan inuu ku odhanin meeshaas ayaa wanaagsan waxaan ka wadaa dadka maanta social mediaha sida xun u isticmaala dumarka soo qaawiya lacagta ka raadiya waa damac waxa qaadayo meel xun buu u tilmaamayaa xaggan lacag ka raadi ayuu dhahayaa markaa damacu inuu ku qaadin daleed cad kuu tilmaamin meelaan waxba ahayn oo adduunyo yaroo gaaban oo sanado yaroo koobana inuu shaydaanku kuu qurqurxinin duxiyo midho kuugu sheegin barwaaqay iyo nolol iyo fiicni inuu kuugu sheegin diyaarad nin laa ku faana darsiin yarow dadaashay dasa yarood yagleeshay dawarsiga kaaga filan waxood adu gacmahaaga ku hedlatay ood gacantaada aad ku beeratay diyaaradda nin kalaa ku faana cunto yarood adu gacantaada ku beeratay ayaa wax kasti kaa mudan digriga alle iyo cibaado daacadda eebbiyo qur-aanka daqiiqa allow sujuudno difaac bay noo yihiinoo daahaa nagu boorinayay inaan dayr adag ka dhiganno cibaadada iyo allow dhawaadka aad ayay noogu fiican yihiin daaha sallallahu alayhi wasallam nabigeena ayaa nagu boorin jiray inaan difaac ka dhiganno waayo difaac ayay noo yihiin dabacaago wanaagsan dadkaad wada socon kartaano dushaada xaadhanaata dunidaad furaheed heshaa dabacaagu hadduu fiican yahay oo dabeecad fiican leedahay dadka ayaad la wada socon kartaa qof kastaad isfuri kartaan dunida dhan baad muftaxyadeeda heshaa markaa dabacaagu ha wanaagsanaado ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabaynaynaa damiir yeeloo waxyeel damiir yeeloo waxdiid dulqaad yeeloo waxyeel dantaada duq weyn u noqo doqon yaan lagugu xamanin haddaba inta badan waxaan la hadlaynay waa dhallinyartii waxaan u sheegaynaa inay dulqaad yeeshaan dadkana ay il gaara kula socdaan dantoodina inay u noqdaan qof weyn doqon yaan lagugu xamanin damiir yeelo waxdiid qof waxdiido noqo ma raba waxaa dheh qof dulqaad la noqo oo waxyaabaha qaar yeel dantaada duq weyn u noqo
dantaada qof weyn u noqo dhalinyartan la hadlayay doqon yaan lagugu xamanin maansada inta ayaan kusoo gabagabeynayaa waqtiguna aad ayuu adag yahay waxaan jeclaa in waqtiga inala qaato dadka ay maasadan soo gaari doontana waxaan leeyahay sii share gareeya wala linkii la sii gaarsiiya asxaabtayda igu cusub iyo kana waxaan leeyahay soo dhawaada sharaf ayay tahay inaad ila joogtaan ama aad igu soo biirtaan